waxaan nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdii qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida muguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxdii dalka ugu sareysay oo ra'iisul wasaarihii wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii ummadda Soomaaliyeed aanu ilaalino waxaanu u dhaaranay in dhiigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummadda Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegi mayno marxaanti ka noqon mayno meesha annagu aanu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka marxaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelin cagjuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degaynaa laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way annaga dhiigayaga u hurnay annaga dhiigayaga u bixinay annaga dhiigayaga aanu ugu talagalnay inay nabad ku noolaan inaanu argagixisada kaga ilaalino inaanu kaga ilaalino baalki laakiin uma aanayma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo in lagu caadeysto dhulkii xoogga dalka Soomaaliyeed ee leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad ogtihiin duruufo adag inuu soo maray iyo marxalado kala duwan isagoo mar walba u heelan sidoo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda shacabka Soomaaliyeed oo u ilaalin lahaa inta ka bacdi waxa jirta ciidanka badda Soomaaliyeed oo mar walba ku heelan inay ilaaliyaan una xil saaran baddeena Soomaaliya si ay u ilaaliyaan biyaha badda iyo xuduudaheena waxa jirta ciidanka badda inuu leeyahay hantiyo badan oo maguurto ah oo ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan wala socotaan ciidanka badda waayatan wuxuu gaaray horumar la taaban karo oo lagu tayeynayo ciidanka agabkiisa iyo xagga ciidannimadaba ciidanka baddu marka wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo oo dhowro biyahaas Soomaaliya aanan lagu soo xadgudbin ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran